عبد الله عبد الرحمن إبراهيم والله بدي يكون إلى أفريقيا سيشر بقى لو دولة جبوتي وما ركتها يعني هدو دمك قال لك إلى هالكلام وصار هيد سيشر شرع الدران لو بدي وعلينا هاي واحد دستور كنا يا قوانين الإسلام من أن كنت ربا يا كراعي الدار الدران خد علي محلو دي الدولة جبوتي قالوا دي ولي هذا waxay jawaabo ay ka soo bixisay Djibouti ma jirto Somaliland wasiirka arrimaha gudaha waran cadde 10 jeer baan tagay fal waa mar walba wuxuu lahaa waan keeninaa oo halka maxkamad lagu saaray sida wahayd madaxweynaha xitaa waan kala hadlay laba jeer baan madaxweynaha la kulanay waxaan ku niri arrinkaas jiray in kaas daraa loo gudbiyay madaxweynaha waxa ka codsanaynaa inaad ilna xariis la ku eegto in ka arrintiisa aan naga samirsiiso sadiya samgeeri yanlo تيونو مدنا كاين مركا إن كستو إيجان الحمد لله رب العالمين كم نبض قبو عافمات قبو وكوعليا يعني قبو وكوعليا وصور هاي نوم ما تيسكون هسي واحد بعطي أنا تري حتى نوع علينا عطسي إن كاش لو سوء اليو حريتيسي مدحوينا جمهورية الصومال إسماعيل عمر الجيلي والسير كان أريمها قده ما تشورو تلقى جمهورية الصومال بسنا حريص لو حنقول عطسينا إن كي لو سوء اليو حريتيسي هدو دمبي قالي وطرق كقالي أبايا جبوت كقالي حتى أنت الكيس اللي وصار محكمة وأنا أقول له دمبي ليه يدي وما دمبي ويك شافر على تقصع لكن أنا ما قبل الدمبي بو قالي ولا يبكي يرك 16 سنة لو بدي ونكتري إنما الحساق على سؤال غريبات هو نبنا عبر الشديد وحوي مات كل أيام قرنا وارجع لين بدل ما كان ما تنوح لنا مدن مدحوي وحكا عطسنا إنا كائنات إلنا حريص لك وإبتدأ أرنكيزة كسوع السجن ضد الصومال حرية دي سنة لو سعودي ما دام أفر إنت وحرية يا وإنت جاب مدعونا كلام الله ووسير كريمة قدا كلام الله وجنك عيتا بولس كلام الله وأولي وحنا قصوا تقلي هبيراتي أنا شري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. waxaa halkan ka salaamaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo mudanayaasha kale ee dalka ayaan ka salaamaya oo salaan qaali ah u gudbinaya salaanka bacdi waxaan mar labaad salaamaya iyagana Jamhuuriyadda Djibouti ee aan walaalaha nahay oo arrinka aan maanta ka hadlayno inaan ka markii ay ogaadeen si sharaf iyo xushmad leh ay u hayaan wax dhibaato oo loo geystayna aanay jirin sidaa darteed waxa aanu leenahay waxa inankaasi lagu qaaday waxaan waafaqsanayn sharciga u degan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliland ayaa lagu qaaday oo ay cadeeyeen cid waliba intaa odayaasha ay soo taabteen oo dhan waanu kala hadalnay hadduu daakhiliga yahay haddii uu yahay dambi baadhayaasha haddii ay tahay mid taliyaha biliiska madaxweynahana waan u tagnay markii uu dambeysay madaxweynuhu wuxuu leeyahay mudane Axmed wasiirka arrimaha gudaha ayaa arrinkaa kala tashanaya inankii xaaladiisa oo waran cadda ahaa marka wasiirka daakhiliga wax jawaabo oo dib naga soo noqday ma jirto maanta iyadoo oo ay weliba joogaan dadkii mas'uuliyiinta ahaa ee arrimaha ku shuqlahay reer Djibouti ay maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland dhex joogaan waxaan madaxweynaha soo gudbinaynaa tiyo waliba madaxweyne dadkana aad madaxweynaha u wada tahay wax aanu ku horeenahay dalkana aan jirin oo shaqaale yaa dhamaan ahaanteed taana aanu ka codsanayno inaad noo magacaawdo dad badan oo shaqaale ida dadka aad wada madaxweyne halno oran ama noocatii inaad badhun tahay madaxweynenimada yaa taana waan ka codsanayna badan madaxweyne yaa inankii maanta waxaan ka codsanaynaa sidii hore baan kuugu nimid maanta inay dalkiina Djibouti kula joogaan adina ka xorriyadiisa lagu soo celiso annaga oo xushmad iyo wanaag waliba ku hayno madaxweynaha iyagii baa tahay adigu hadii wax gudubto madaxweynaha iyagii baa tahay oo annagu sharaf baan ku hayno mar walba yaa ilaahayna uu kala xisaabtami doona haddii aad xaq darro nagu samayso si gaar ah yaa mudane madaxweyne waxaan ku leenahay si naxariis leh oo eeg waa ubadkaagii oo kale yaa ما هاي إن ذلك اللي قد بيهدونا كده بيليه ده عالم بوليه ده البوليه حكومة بوليه هذه تهدينا يكون قبصنا سودين بقوا قاضي أول غاوة كم مقطع يا
على الحبك ما ننقعدن يا لكن إن كاسي إلا لو في بان لو أرجنا أو أجنبي ملو لو في أجنبي ما هذا لكم يا وانك أبتي تكرر يصير يا كاترسن بيش ما دكان سيدا درتي waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda reer Djibouti inay arrinka hoos eegan inaan ka xorriyadiisa iyo sharaftiisa lagu soo celiyo madaxweynahana waxaanu ka codsanaynaa xaq u leenahay oo noogu daro xukuumadda aniga soo gabagabeynaya waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne dalka wax wanaagsan baad u qabatay wax wanaagsan iyo waxa lagu doortay tahay in wax wanaagsan u qabato waxa laga yaabaa madaxweynayaasha waxyaalaha sharciyada darrada ee dhaca in loo hoos geliyo iyo oo basax loo hoos geliyo way dhacdaa taas ya in la arkaa wax ku ogeey markii hore iska dhici karta oo lagu hoos geliyo ka dhuufitaankiis haddoo maanta kula dad ogaatay oo aanu ku sheegnay mudane madaxweyne arrinka talaabo ka qaad waa 2014 intaas oo dhan uu maqiyay inakaas hooyadii way dhabeeshay ya إلى كاير سيادرتي إلنا حارسنا كو أكتو إن أرهن مواطنين من كو أكتو وضد كاجي وضل كاجي وحنو قال سؤال لنا وضيا شادي بنو نهاي عقاشي قبل جبيري بنو نهاي أو ضد كتير حكومة ضاع سيادرتي ما تروح نقع صرنا إن ونوقص وكاب بحدونا ورأنا كفرحنا لا بدنا نقع صرنا والسلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة عادنا الله منها. هلكن كوحة كجهد لنا عدسي كصابسن مستر عبد الله الشيخ عبد الرحمن oo la xidhay 2014 bishii August laga qaaday Soomaaliland si sharci darro looga qaaday loogu wareejiyay Djibouti xeerkeena iyo dastuurkooduna aanu ogolayn qodobka shanaad faqradiisa labaad waa xaraam u leeyahay wan Soomaaliland in la gudbiyo cid kale loo dhiibo sida daraadeed khaladka saabaa dhaco waxaan leenahay aan ku codsanaynaa dawladda Soomaaliland inay u hawl gasho Mr. Abdullahi Sheikh Abdirahman maadaama uu joogo maanta wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ee Djibouti in arrinta kala hadlaan sidii Abdullahi loogu soo celin lahaa xaqiisii iyo muwaadinimadiisii qarankiisii Soomaaliland mar labaad gacanta loogu soo gelin lahaa ayaan uga fadhinaa halkan aan ku codsanaynaa haddaan odayaashanahay iyadoon ka rajo qaboon aad ugu rajo weynahay inay dawladda Soomaaliland hawsha gacan weyn ka geysan doonto oo muwaadinkeega la soo noqon doonto dawladda Djiboutina aan aad ugu rajo weynahay walaalaha ay tahay qaali nagu yihiin سر إسماعيل عمر قيلني وصاحبكي ولي بأنا جاركها وقت كان جبوتي جوبي وحرف لي يا إنه جوابك بحين دونه ونكسن وعبد الله كعنتي إذا كسر عين دونه إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت دمر وضياش أنا بدي سنة madaxweynaha dawladda Soomaaliland iyo madaxdiisa kale qaranka ka hooseysaba dhammaan ku yar iyo ku weynba waxaan ka codsanayaa madaxweynaha maanta محمد أحمد سيراي إنه كارنكيس عن دور شرنا كلا هذا اللي سيدا ونقصيها فضل لي نقص صوتي جواب ونكسر on على الحمية تبشير منا أنا اللي قلتين ما دام عن الشرع وحي وافق سنة على المرن لسكت بيه إني قلنا ونور بهايو ونانتي ورانا وركيس بهاين تيلن كاسي دقصال إنه السعودي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.